waxaa jiri jiray boqor lahaa hal gabar oo kaliya waxayna ahayd mid qurux iyo wanaag badan isku darsatay laakiin haddana waxa uu dheeraa quruxda oo ay ku darsatay maskax aqli iyo xigmad aad u badan xitaa ma uusan dagi karin qof bini aadan aqligeeda awgiis markii Amiiradii ay gaadhay da'diisii guurka waalidkeed manaha aabaheed ayaa u bandhigay guurka kuna dhahay Amiiradeedii indha uroonteedii waxaan jeclaysay inaan ku arko adigoo marwo ah mid kamid ah amiirada iyo gayaankaaga kugu hareeraysan si ay kugu guursadaan haddana waad qaangaadhay waxaan filayaa in xigmadaadu ka saacidi doonto ninka kugu munaasabka ah si uu u noqdo zawjkaaga iyo boqorka la wareegi doono boqortooyadan aniga gadaashay kadib Amiiradii ayaa ka codsatay aabaheed muddo 3 bari ah si ay uga soo fikirto arrinka boqorkiina waa ku waafaqay dood la'aan isaga oo ilaalinaya farxadda gabadhiisa Amiiradii ayaa fadhiisatay si ay uga fikirto arrinka laakiin ma aysan awoodin umana suuroobay inay go'aan gaadho Amiiradu ma doonayn guurska caadiya mana ayna doonayn inay mehersato nin aan ka xikmad badnayn iyada ama aan ka aqal badnayn markii muddadii 3 bari dhamaatay boqorkii ayaa ku soo laabtay isagoo weydiinaya ra'yigeeda guurka markaas bay ku tiri aabe ma guursanayo ilaa nin iga maskax badan igana xikmad badan aniga mooye sidaa darteed waxaan go'aan ku gaadhay inaan guursan ilaa nin intuu i xujaysto aan garan waayo xujadiisa kadibna xujadiisa iyo xikmadiisa aan garan waayo haddii aan helo ninkaas isaga ayaa noqon doona ninkayga haddii uu ku guulaysto xujada oo sida ku guulaysto xujadiisa intuu xujo ay weydiiyo aan xujadii ka si waayo isaga ayaa ninkayga noqon doona haddii intuu xujaysto xujadiisa aan furana masiirkiisu wuxuu noqonayaa geeriweyd boqorkii ayaa muddo badan ka fikirayay hadalkeedii laakiin ugu dambeyntii uu la waafaqay sharadkeedii arrinkiina wuxuu u gudbiyay boqortooyada iyo baarlamaanka ninkii Amiiradeeda xujaysta waliba xujadaas Amiiradu ay kari weyso xalkeeda isaga ayaa guursan doona waliba noqon doona boqorka boqortooyadan laakiin ninkii fashilma waa geeri masiirkiisu kadib waa isla qaateen dhammaan umuradii wasiiradii iyo dhammaan culimadii si ay u dhameystiraan arrinkaas mid walibana wuxuu hamiyay inuu noqdo midka xujadiisa iyo Amiiradiisu midka xujadiisu ay Amiiradu garan weydo kadibna sida uu ku noqdo guulaystaha aqligeedii iyo xikmadeedii badneed darteed waxay awooday inay xaliso dhammaan xujooyinkii la soo weydiiyay mana aysan badbaadin kuwii xujooyinka soo bandhigay kulligood waa la wada lahay tuulo yar oo u dhaweyd boqortooyada ayaa waxaa ku noolaa mid yar oo adhi jir ah oo la noolaa hooyadiis waana la yaqaan xikmadiisa iyo wanaagiisa markii ay soo gaadhay sheekada Amiirada ayuu go'aansaday inuu tijaabiyo nasiibkiisa wuxuuna doonayay inuu xujaysto Amiirada waliba mid aysan awoodin inay furto wuxuu u tagay hooyadiis isagoo xamaasadaysan markaas buu ku yiri hooyo ii diyaari sahay waxaan u socdaa magaalka si aan u soo xujaysto Amiirada boqorka kadibna aan u guursado maamadii ayaa argagaxday oo ku tiri war ma aqligaagii baad weysay sidee ugu dhiiran kartaa arrin dadka ka weynaa ee qabiilkeena ay kari waayeen ha tagin haddii kale waa iga dhimane laakiin adhijirkii ayaa yidhi isagoo ku adkaysanaya ha warwarin hooyo waxaan ku kalsoonahay nafteeda waana guursan doonaa Amiirada maamadii ayaa u murugootay waxayna ka fikirtay inay ka hor istaagto safarkaas waxay ugu dartay cuntada dawo hurdada ku ridaysa si ay uga joojiso safarkiisa wayna u diyaarisay wayna soo watisay iyadoo ilmeynaysa wuxuu fuulay dameerkiisii adhijirkii wuxuuna soo qaatay leebkiisii iyo cuntadiisii jidkii magaalka ayuu lacagta soo saaray isagoo ka fikiraya xujada uu ku xujaysan doono Amiirada isagoo ku guda jiray safarkiisa ayuu dareemay gaajo badan markaas buu hoos fadhiistay geed hadhkii markaas ba isla filaana waxa ku soo hormaray bakayle markaas buu leebkiisii la soo baxay oo toogtay bakaylihii wuuna la gafay haddana bakayle kale ayaa soo hormaray laakiin wuu la helay markaan kadib ayuu fiiriyay markaas buu fiiriyay adhijirkii bakaylihii uu dilay markaas buu arkay inuu bakayluhu uur lahaa markaas buu furay calooshiisii oo uu soo bixiyay bakaylihii raay caloosha ku jiray markaas buu cunay markaas buu naftiisa ku yiri isagoo faraxsan waad heshay qayb kamid xujada waxaad dishay waxaad aragtay waxaadna cuntay mid aan dhalan isagoo cunay ayaa waxa dhacay dameerkiisii oo dhintay kadib markaas uu cunay dameerkii kadib markuu dameerkii cunay maxay cunadii ay hooyadii soo siisay ee sunta lahaa markaas buu yiri ogaaday in hooyadii sumaysay cuntada si ay uga hor istaagto jidkiisa markaas buu yiri ilaahay ha kuu saamaxo hooyo waxaan ku dhawaaday inaan dhinta ficilkaaga dartii laakiin booskayga dameerkayga ayaa dhintay isagoo iska fadhiya dameerkiisii agtiisa ayaa waxaa imaaday 3 tuko oo ku duldugtay dameerkiisii bakhtiga ahaa oo cunay hilibkiisii kadib isla markiiba si degdeg ayaa u dhinteen 3 tuko raaciga ayaa muusaday markaas buu yiri xujadu waa inoo dhantay hadda hooyadii waxay dishay dameerkuna wuxuu dilay 3 tuko wuxuu sii dhamaystirtay safarkiisii raacigii oo uu ugu socday boqortooyada iyo magaalada uu dameyna waa soo gaaray magaalkii
isagoo daal badan uu ka moodo. markaas buu hoteel tagay meel maqaaxi ah si uu ugu nasto. markaas buu cunto iyo sharaab dalbaday. ayaa ninkii markuu cuntadii iyo sharaabkii dalbaday, ninkii hoteelka iska lahaa ayaa weydiiyay, waxaan ku arkaa magaalka inaad ku cusub tahay wiilow, waxaad u timid magaalka? raaciga ayaa si kalsooni leh ugu jawaabay, beri waxaan u socdaa qasriga. beri waxaan u socdaa qasriga si aan u xujaysto amiiradda, waana guursan doonaa. markaas buu ku qoslay ninkii hoteelka lahaa. ilaahay ha kuu naxariiso wiilkaygiiyow, imise dhalinyaro ayaa sidaasoo kale tiri adiga horta kulligoodna maanta ciidda ayay ka wada hooseeyaan. caawankan badbari macnaha hoteelkayga, berina qabrigaad u hoyan doonta qabrigaaga, ayuu ku yidhi saaxiib hoteelkii. habeenkii ayuu bariyey hoteelkii ninkii. subaxii markii la gaarayna ayuu u jeensaday dhankii qasriga. amiiradduna waxay sugaysay cidda cusub ee xujaysan doonta. la soco qaybta labaad.